Salaamu calaykum. Waxaa jiray wiil lagu magacaabo Cabdirasaaq oo ku dhashay tuulo yar oo ay dadku ku noolaayeen nolol aad u liidata. Maalin kasta oo qorraxdu soo baxdo, Cabdirasaaq waxa uu bilaabi jiray dagaal nololeed oo uu kula jiro faqriga, shaqo la'aanta, iyo rajada oo aad u sii dhacaysa. Aabbihii waxa uu dhintay carruurnimadiisii. Hooyadii waxay ahayd haweeney danyar ah oo suuqyada ka soo gadi jirtay khudaarta. Waqti kasta oo hooyadii suuqa tegayso, waxa uu arki jiray hooyadii oo qorraxda kulul taagan, isaga oo qalbigiisa uu ka oran jiray ama uu ka dareemi jiray in uu maalin uun hooyadii ka saaro dhibaatada. Markii uu jirsaday 14 sano, waxa uu bilaabay shaqo raadis. Waxa uu ururin jiray caagadaha waddooyinka yaalla si uu uga soo iibsado buugaagta uu dugsiga ku dhiganayo. Saaxiibadii waa ay ku qosqosli jireen, laakiin Cabdirasaaq waxa uu odhan jiray, maaha shaqada hadda ee waa rajada. Sannado ayaa soo dhaafay. Dugsi sare ayuu dhammeeyey, lacagta jaamacadda ma uusan heli karaynin. Dad badani waxa ay kula taliyeen in uu iska dhaafo waxbarashada oo uu raadsado shaqo uu ku noolaado. Laakiin Cabdirasaaq marna ma uusan quusan. Waxa uu bilaabay in uu iskii isku baro kombiyuutarka, isaga oo aan xitaa haysan wax internet ah. Waxa uu xifdiyi jiray casharrada uu ka helo meelaha internetka lagu isticmaalo. Berigii hore waxaa jirtay meelo lagu isticmaali jiray internetka oo la kiraysan jiray saacad badh iyaad kiraysanaysaa meelaha, saacad ama saacad iyo badh, ama wixii aad lacagtaadii jeebka ugu gooyaan. Meelahaas ayuu tegi jiray. Waraaqaha iyo casharaanta iyo informationka uu ka helo xogaha meelaha uu tegayo ayuu urursan jiray. Wuxuu ugu tegi jiray gurigooda ayuu la tegi jiray, waa akhriyi jiray. Wixii xoge uu ka helo ayuu xifdiyi jiray si uu waxbarasho ugu helo, maadaama jaamacada xilligaasna aynay aad u sii tayo badnayn. Cabdirasaaq waxa uu sameeyey markii uu xog badan ka helay internetkii iyo noloshaas internetka ah, waxa uu sameeyey in uu xog badan ka helay internetkii. Teknolojiyadii xog badan uu ka helay. Beriga teknolojiyadu ma sii xoog badnayn. Cabdirasaaq waxa uu aas-aasay markii uu isku geeyey lacagtiisii yarada urursan jiray shaqada ahayd. Waxa uu aas-aasay shirkad yar oo teknolojiyadda ah. Shirkadiisii way u kordhay, Ilaahay waa u barakeeyey. Hadda shirkaddii waxay maraysaa 30 qaybood ay ku kala leedahay daafaha caalamka. Waxa uu noqday mid aad loo ixtiraamo. Waxa uu gaadhay rajadii uu rabay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee uu sameeyey waxaa ka mid ah in hooyadii uu u dhisay gurigii riyadeeda, dhisaynkii rabtay ee guriga u ahaa. Sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee uu Cabdirasaaq sameeyey waxaa ka mid ah waxa uu caawiyaa dadka dhalinyarada ah ee aan awoodahayn in ay iskood waxbarasho iskaga bixiyaan. Haddaba waxaan kusoo gebagabaynayaa, qof kasta waxa uu soo maraa nolol adag, waxa uu soo maraa xilliyo aad u adag oo noloshiisa saameyn aad u badan ku leh. Laakiin shayga muhiimka ah ayaa wuxuu yahay adkaysiga, samirka, in aad cagaha dhulka ku sii hayso inta ugu yar iyo inta ugu badanba ha ahaatee. mar uun guushana waad gaadhi doonta. Ilaahayna tala saaro. waa ka Ilaahay leh, faidaa cazamta fatawakkal cala allah. aad baad mahadsantihiin. jazaaka allahu khayra aljazaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.